nin baa raggii ay la sheegaysan jirtay waxa kaga soo hadhay saddex nin. Saddexdii nin baa si alle say u kala saarto ay garan weyday in badanna way ka fikirtay hase yeeshee go'aankii way gaadhay xilliyada ka mid ah. Go'aankii markii gaadhay waxay u boqoshay inay raggii wargeliso habeenada ka mid ah inay la ballanto halkaana lagu kala baxo ninkii ay ka rabtayna ka xulato. Waxay tiri habeenku dayax dugsiguna dan sida wada ogtiin rag yahow gabadhin uu bay qaadaaye wax ku dheeraada ma qaado sidaa daraaddeed saddexdeena nin ee sida kidiska isugu yimi goobtan saddexdiina ma anaa la sheekaysta midna ma necbi laakiin caawa waxaan wadaa natiijadii lagu kala bixi lahaa ama nin waliba ku khasaari lahaa ama ku faa'iidi lahaa taasoo aan la isu qarinayno si toosa loo wada daawanayo ama la isu hortaagan yahay. taasina macnaheedu waxa weeye nin walba gabadhi waxay kugu raacdo ama ay kaga tagto saaxiibkaana kaga hadho adigana ay kugu raacdo soo bandhig. su'aashan anaa idii bilaabay bitiri marka koowaad nin walba hal su'aala oo isdaboosha sida dhaqankeenu Soomaalida u naqaano wax la waayay geelow ninkii waalan bawdado kale. saddexdii nin ee lagu xidhay ee nin walba gabadhi waxay kugu raacdo maanta ka jawaab oon laga soo tashanayn oon laga soo fikirayn oon nin faqayn waayo nin walba gabadha asaga raba iyo u diyaar garoobeen nin walbana wuu hadlay wuxuu ku bilaabay kii ugu horreeyay waxa la yidhi kunna way ka hadliyaan kowna way ka guursadaan xilliyada ka mid ah sannadada ka mid ah waqtiyada ka mid ah ayaa waxa kulmay inan baa raggii ay la sheegaysan jirtay waxa kaga soo hadhay saddex nin. saddexdii nin baa si alle say u kala saarto ay garan weyday in badanna way ka fikirtay hase yeeshee go'aankii way gaadhay xilliyada ka mid ah. go'aankii markii gaadhay waxay u boqoshay inay raggii wargeliso habeenada ka mid ah inay la ballanto halkaana lagu kala baxo ninkii ay ka rabtayna ka xulato taasoo shuruuda ka dhigtay arrimaha ay soo socda. kabacdi fariintii way wada gaadhay raggii isku habeen baa raggii lala ballamay waxaanay gabadhu tilmaan iyo tusaale ka dhigatay inay soo xidhan doonto boqorkii dhaclihii cismaan sheegayey iyo maradii caddayd ee baftada ahayd waxaanay kula kulatay duleedka amba kabalka ama sabada ninba sida u yaqaano meel ka mid ah. goobtii markii la iskugu yimi ee nin waliba uu arkay gabadhii soo socota waa soo ruqaansaday budkii uu ku kadaloobayna waa ku soo tukubay waxaanu u soo ruqaansaday ama u soo dhaqaaqay dhinacii ay ka xigtay gabadhu ayadaana bilowday hadalkii waxaanay ku bilowday assalaamu calaykum waraxmatullaahi kabacdi salaan markii kabacdi dugsigu dayax waxay tiri habeenku dayax dugsiguna dan sida wada ogtiin rag yahow gabadhin uu bay qaadaaye wax ku dheeraada ma qaado sidaa daraaddeed saddexdeena nin ee sida kidiska isugu yimi goobtan saddexdiina ma anaa la sheekaysta midna ma necbi laakiin caawa waxaan wadaa natiijadii lagu kala bixi lahaa ama nin waliba ku khasaari lahaa ama ku faa'iidi lahaa taasoo aan la isu qarinayno si toosa loo wada daawanayo ama la isu hortaagan yahay. taasina macnaheedu waxa weeye nin walba gabadhi waxay kugu raacdo ama ay kaga tagto saaxiibkaana kaga hadho adigana ay kugu raacdo soo bandhig. su'aashan anaa idii bilaabay bitiri marka koowaad nin walba hal su'aala oo isdaboosha sida dhaqankeenu Soomaalida u naqaano wax la waayay geelow ninkii waalan bawdado kale. saddexdii nin ee lagu xidhay ee nin walba gabadhi waxay kugu raacdo maanta ka jawaab oon laga soo tashanayn oon laga soo fikirayn oon nin faqayn waayo nin waliba gabadha asaga raba iyo u diyaar garoobeen nin walbana wuu hadlay wuxuu ku bilaabay kii ugu horreeyay inay yahay tigaadi ayada laacda. kii ku xigay waxa uu yidhi inay yahay hooskii hadhlaa la hadhsadaa. kii ku xigay wuxuu yidhi inay laankii liil leh ayaa la diirtaa. waxay jawaabti ku wareegtay inantii oo hadalkii qabsatay waxaanay tidhi tigaadi ayada hilaacda waxaan kaa idhi qurux baad sheegataye tawalleed kaa dhigan maayo ku daawan maayo quruxdaada la hulal. hooskii hadhlaa la hadhsadaa waxaan kaa idhi adiguna inanka kalow adduunyaad sheegataye adduunye marna waa la helaa marna waa la waaya adna salaamu calaykum. qodobka saddexaad laankii liilaa la diirtaa intay soo dhaqaaqday oy garabka qabsatay gacanta qabsatay tiri dadnimo iyo dabeecad ninkii ugu dhaqayaan raacayaaye waa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkaa waxa lagu dhacay ninkaasi gabadhu inta badan u soo fikiray
ee uu xitaa u qorsheeyey meherkeeda iyo yaridkeedaba geela ku bixin lahaa laakiinse afkiisaa gabay nin aflabaa abaar ka baxa iyo soomaalidu ku gabagabaysaa